madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe oo dhammaan soo xiray rajadii iyo riyadii uu rajeynayay kalitaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu Axmed Madoobe uu ka dhameeyay hadalkiisii ahaa in uu doorasho qabsanayo. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo haatan khilaaf culus uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo kale oo Xasan Sheekh Maxamuud uga sii daraysa go'aamadiisii ahaa uu doorasho kaliya uu ka qabto. sidoo kale dacwooyinkii Xasan Sheekh Maxamuud uu ka gudbiyay Axmed Madoobe uuna gudbiyay beesha caalamka ayaa Axmed Madoobe waxa uu dhagaha ka furaystay baaqyadii loo diray waxaana uu sii wata jadwalka doorashadiisa ee dhowaan uu soo saaray guddiga doorashada ee maamulka Jubbaland. sidoo kale madaxweynaha Jubbaland oo doonaya in uu markii saddexaad dib loo doorto ayaa haatan soo dhigsaday boorkiisa uu ku muujinayo halku dhiga ololihiisa ee doorashada 25 bishan ka dhacaysa gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. boorkan oo si weyn loo qurxiyay ayaa waxaa lagu soo dhajiyay inta badan wadooyinka magaalada waxaana lagu xardhay halku dhiga uu sanadkan uu ku ololeynayo Axmed Madoobe kuwaas oo kala ah karti dowladnimo iyo karaamo shacab sida uu muujinayo sawirka boorka lagu soo qoray. waxaa la adkeeyay ammaanka Kismaayo waxaana ka socda howlgallo baaritaan ah oo ay sameynayaan ciidamada daraawiishta Jubbaland si loo xaqiijiyo amniga doorashooyinka iyadoo sidoo kale la hakiyay dhaqdhaqaaqa meelaha qaar. halkan waa Xogsare TV waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo saarto iyo like inta dib dambe ugu kulmi doonaan nabad geliyo.